waxaa wax la yaabay noqotay waayadan dambe dhacdooyinka dhacayo aad bay midba maalin mid ka dambaysa uga sii xumaanaysaa nimankii nooc walba oo naag ay ula dhaqmayso haweenka ay ula dhaqmi kareen way ula dhaqmeen kuma qabaayi kuma furaayi kuma jeclaanayi kuma nacaayi adu meel bal u raac haddaa kala tagtiin wuu ku dilayaa haddaa isqabtiin wuu ku dilayaa haddaa isla joogtiin wuu ku dilayaa haddaa jeclaatid wuu ku dilayaa haddaa nacdidna wuu ku dilayaa ninka Soomaaliyeed marka xagee la raaca haddii inta haddaan lagu jeclaan karin lagu nici karin lagula joogi karin lagula noolaan karin adigu qabniina waa diideen furiina waa diideen gabadhii afurtaana waa dilaysiin gurigeeda uga daba tagaysiin tii aqabteen xurmo kuma dhaqanaysiin iyo wanaaga isla ciisa xiriir ku haysatanaysiin tii inaan qabin oo gabar banaanka joogtan waa xoogaysiin kadibna waa dilaysiin wariya ilaahay qaan ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa ugu baryaynaa samsam inuu ilaahay naxariista janno ka waraabiyo oo shalay lagu dilay magaalada Muqdisho dhacdadan waxa kale in ku tusi doonaa gabar yar saqiir oo gabadhaas dhashay nin wariyo oo sida ula dhaqmay wareysi ka qaaday oo dhahay hooyada sidee ahayd xaalkeeda markii la dilay iyo xaaladeeda sida fiidiyogaas haddaad aragtiin gabadhaas xaaladeeda looga sheekeynay suma wallahi qofkii damiir leh ama wareysanay damiir leh wuu ka nixi karaa wuuna dareemi karaa dhibka meeshaas yaalo iyo gabadhaas yartaa qalbigeeda siduu noqonay waqti xaadirkaas kadamba afka hadduu ka qabto midida dilshay anigana marka koow gelinayaa arkay waa kasoo orda ka dambana amran abshir cabdi oo 8 sano jir ah waxay goobjoog u ahayd dhacdo 5:30 galabnimadii maanta uu hooyadeed ku dilay Toorey nin la sheegay in uu horay u qabay hooyadeed oo lagu magacaabi jiray Zamzam Cabdiwaxid Daahir Gelle. bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh waana salaamo dhamaan walaalaha ku channelkayga meel kasta adduunka ka joogtiin waxaan rajeynayaa khayr caafimaad farxad bashbash iyo barwaaqo ku noolatin insha Allah intii xanuunsan ilaahay caafimaad tamaam si inta caafimaad qabtan ilaahay u siyaadiyo موضوع برنامجك أنك هذا دون ما أنت هدو إلهي يرادو وحواي فرت إلهي إن الله وإن إلهي راجعون إلهي سبحانه وتعالى نحرست الجنة هسيو وحكى هذا روا مامو نينك وكنت لدك ماذا أركين لي إلهي نحرست الجنة هسيو ماما ذا سبحانه دلي نينك هذا ورقبي شري أو إكل التجاه مركا وحاجرتو دعوين كذا Soomaaliya waayadan dambe ka dhacayo mararka qaarkood marka u fiirsatid waxa isleed wax isla doonasho oo isla raadiyay oo maxaa la dhigi ama magac lagu raadinay ama meel kale ka socdaan waay marka sababtu waxay tahay waxa soo badanayso gabadh falada ama xadgudubka ama dilalka loo geysanayo hooyooyinka dilayaan nimankoodii hadduu qabay hore u qabi jirin wuu dilayaa hadduu furayna wuu dilayaa kii ku furay hadduu ku dilo kii ku qabay uu ku dilo kii ala socotay uu ku dilo kii ala sheekaysanaysa uu ku xoogo uu ku dilo gabdhaha yararka la xoogo intaas maxay noqon kartaa ma waxay noqonaysaa nimanka dhan laga carro nimanka col laga noqdo nimanka laga tago laga fogaado laga dheeraado meel uu nin joogo dhan oo nin uu ka nuuxsanay la tago waa maya nimanku ma wada xumaan laakiin se waxaa jiro in badan oo nimanka magaca ka xumeynayso magaca laakiin ninka maamadan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha naxariisto waxa dhigi jiray Zamzam Cabdiwaxid Daahir nin hore oo ay qabi jiray ayaa shalay wuxuu ku dilay degmada Dhigrigle maamada markuu dilay wuxuu ka codsaday horaa la dhahay inay isku noqdaan maadaama ay hore isku qabi jireen ayda markay ka diiday isku noqoshadii ayuu dilay asagana oo Toorey intuu u adeegsado Toorey galiyay dhacdada marka laba cashir baa laga qaadan karaa lagana baran karaa lagana nixi karaa waa tan koowaade qofka bini aadanka ah dadka guurka ilaahay uu baneeyay in la iskuursado in la isfaran ugu jiday hadii la isfahmi waayo qofka hadii aad ka meermin oo aadan rabin inaad ka tago ha furin marka hore tago hadduu calaf dhamaaday بس محل يجي أكل تكتين كو حصرمية قف كاسنا أكل تكتين لكن يقولنا قصب الدل مركو روا إسكمات فرتين هداك عشاء وكعب ما فاهمينه إلها لكن قدر وحول بقدر يصوب إليهن لا صوب كعقد لكن أدي واقع قلدنا إن تقف بني آدم نفتيس إنه جوي صدوق ودي قف كان إنه كتك تذا حق ولا هاي نمكن مركا إن وايد عن ضمن حكي كان 10 إن هيجتجن هيلا جوجن هينعن هيتشعلانن haddii ku jeclaado waa dilaysiin dadku waa dilaysiin qofka jeclaata naagta ku jeclaata waa dilay haddii ku nacdo waa dilay haddaad furtid waa dilay haddaad qabtidna waa dilaysaa marka nimanka Soomaaliyeed nimanka xunxun oo idinku jiro oo magaca idinka haleynay oo magaca nimankana aawadaagtiin ina iska qabatiin aan fiican haddaa isha ka fiirtiin maalmo bayto qof baa la dilay haween baa la dilay maalin u horeysa laga hadlo dhaho qofkan haweenkana la dilay ama waa la xoogay Allah u naxariisto maxay u dhacday dhacdadan hal maalin la soo qaato ama laba maalin maalinka saddexaad uu qofka bas cidiisa bas ay xanuunka dareento oo qofka uu la dareemo waa dhibaato waxa fiican waxaas inay tahay tilaabo sharciisa laga qaado dadka waxaas ku dhaqaaqayo la mariyo in qaab aysan mar kale to inuu u habaysanin inay hooyo ama gabar ama
qof dumar ama qof bini aadam ay dhibaato u geystaaneeto oo dumarka ay ilaaliyaan oo xurmeeyaan hadduu qabana uu xurmeeyo hadduu furana uu xurmeeyo haddii la sheekaysanaysan uu xurmeeyo aysan noqonin haddii kuula sheekaystana waa ku dilaa haddii ku guursadan waa ku dilaa haddii ku furana waa ku dilaa aysan noqonin dhacdada wax soo jireen sii socdo weligeed daa'iman abadan aan dhammaanayn oo dhammaad lahayn aysan noqonin dhacdo kastoo dhacdan midba midda kale inay kasii xuntaa dareemaysaa gabar nin la sheekaysanaya inta meel ku ballansado markay u timaado dilo xoogo dabaqa tuuro nin naagtiisii dilo maseer dartiis u dilo mid maxaa la dhihi jiray markuu furay kadib sun biyo ugu daro mid markuu furay kadib toorey ku dilo aan kugu noqdo darteeda u dilo waxaasoo dhan ma naqaana waxay ka imaanayaan iyo waxay ku dhici karaan wax walba oo soo duuduwa ahayd oo dhan waa uu qadarta ilaahay qofna dhinac ma marsiin karo oo maalin walba horta laba gooraba qadarka wixii ilaahay kugu qadaro maalinka xab iyo biyo ahayd ilaahay subxaana wa tacaala agtiis lagaaga soo qoro horta waa kugu maraayaan waa kugu dhacaan laanse haddana waxaa jirto wax la dhaho inaan wixii aysan noqonin wax oo caadi laga dhigto oo cashir aho hadday dhacdadu la dhaho ha qofkan haweenkan miyaha ninkeedia dilaha caadi waa hore ninka naagaha usoo dilay ninka naagaa xoogaha caadi waa hore waa loo soo xoogay aysan noqonin hore aysan ka dhicin wixii markay dhacaan tilaabo laga qaado qofkaas asagaa suuna qof kaleetoo biri jooga uusan ugu daynin uusan asna wadadii hebel umar haddii cinqaabo ama markaas ayadaa la fuliyo qofkaas wuxuu u mudnaa laga yaabo inaysan mar kaleeta ayna ku dhicin haween ama hooyo soomaaliyeed ama gabar yaroo saqiir ah so midda labaad maxaa waa dhacdadan ka cashirka kaleeto oo la yaabo oo la fajacay idinkana arki doontiin la yaabi doontiin nin wariye ahaa wuxuu qaatay microphone wuxuu qaatay camera wuxuu tagay guriga gabadhii hooyadeed gabadhii yareedoo saqiir ah gabadhii hooyadeed maaha gabadhii gabaree dhashay gabar yaroo saqiira oo 8 jira ayuu ninkaas wareysanaya ninkaas muxuu gabadhii ku leeyahay aabtii waxaa sheegtaa hooyadaa mindida xagee looga dhuftay hooyadaa sidee intaa lama jira dilayay adigu maxaa sameynaysay maxaad yeelaysay ninkaas hadda asagana maxaa lagu tilmaami karaa qaybka nooceen waa social media iyo maxaa dhihi jiray microphone iyo wariyayna saxaafadii wallahi billahi qalad ba u fahanteen 90% wariyaasha qaarkood Soomaaliya jooga sababtu maxay tahay cunug yaroo saqiir ah oo dhibaato ku dhacday hooyadiis lagu hordilay damiirka ku siiyay in inta microphone qaadatid dhahdid war cunugii hooyadaas ee loo dilay maxay tahay muxuu noqon karaa cunugaas cunugtaas waa saqiir 8 jir waa 8 sano maalintii gaarto videogan wala recording caalamka dhan kale meeshaas ku jiray waligiis ay aragto maalinkaas hooyada in la dilay in ayda ka sheekeynaysa sidee noqon karaa dareenkeeda adoo ma ku xisaabtanta adiga hooyada oo la dilay adoo qof weyn xataa ma ka warrami kartaa ama ma ka hadli kartaa ama meel soo fadhiista ma dhihi kartaa hooyadaas ee loo dilay qofku dhaha maxaa u qaadi kartaa cudud intee la eg calooshaada sidee noqon kartaa in adoo wariye Soomaaliyeed ana microphone qaatay meesha u nixilheed u diir nixilheed ka nixilheed ilmahaas yar saqiirka in adig naftirkaaga ina meesha ta fadhiisatid aad dhahdid hooyadaas see ahayd xaalkeedu sidoo aha adi sidee noqotay gabadha markay kula hadlayso wallahi waa arkaya videoga arkaysa idinka waa fiirsan kartid gabadha markay fiila hadlayso wariyahaas kaamirada ma fiirin karto indhaheeda waa arkaysa argagax iyo cabsi xataa gabadhaas ma ooyin sababta oohinta markaa ooysid qofka markuu jaanis nafaas u helo oo dhibaato ay ku dhacdo oohin u helaa jaanis laakiin markii cunug yar aad tahay saqiirna aad tahay adoo qof weyn xataa dhacdaas u dulqaadin karin hooyadaadina lagu hordilay oo midi lagu hordilay oo adigana lagu ceersaday saa noqon kartaa qalbigaaguna sidoo noqon karaa soo wax la yaabo markii adiga tiraahday hooyo say kuun say ahayd gabadhaas qalbiga ka gooynaysa kamaysan ooynaynin wallahi gabadhaas niyada kamaysan ooynayn niyada ma indhaha kamaysan ooynaynin uurkay ka ooynaysa gabadhaas uurka qofkii hooyo ama damiir walaan Soomaalinimo uu ku jiro ama naxariis leh ayaana dareemi karo cunugta sirta saqiirka ah nolosheeda markaas ayada ku sugnayd la wareysanay sababta cunugtaas ma ooynin way argagaxsaneed indhaheeda dhan saas ku soo fiirinaysa way fiiqsaneed markii cunug yar saas oo argagaxsan oo hooyadiis lagu hordilay inta microphone qaadatid dhahdid see hooyada loo dilay hooyadaas sidee ahayd xaalku sidoo ah adiga maxaa lagu sameeyay qaam noocee loo dilay ku cilcilisay marka ku soo cilcilisay soo damiirkaaga adigu soo xaguu jira ma fiirsanaysid mana fakaraynin ma soo xad fiirsanaysaa bas adiga inta sirtoo lagu fiirsanayo fiyuska aad helaysid iyo dadkaas warka aad soo gudbisay dhacdaas adiga u hormartay oo la yiri ninkaas hebel wuxuu soo gudbiyay ama idaacad hebel wuxuu soo gudbisay gabadhii la dilay hooyadeed ilaa live u soo gudbisay inta bas ma fiirsanaysaa war ilaahay ka baqoriyaasha isku xishooda dadka magaca wariyanimada ha ka ceebeen caalamka kama dhacdo inuu wariyo meel dhib ka dhacay idinka qofkii dhaawaca ama dhibaato markaas ku jiro ama qoyskii uu qalan yahay dhibaatada kor taagan yihiin ba inaad tagtiin bad guriyihii jiifka iyo fadhiga iyo waxaad soo sawiraysiin iyo meelihii qofka uu seexanayay iyo meelihii qofka deganaa maxaa ka faa'iideysa qofkan uu dhintay baasta si uu dhintay waa ka soo gudbisay warbixinta laakiin cunug tayarto saqiirka qof weyn hataa waa la gartaa oo qof weyn oo ahsan ugu talagalay inuu dhacdo si u dhacdo ka sheekay laakiin ilmo yar oo saqiir ah inta soo fadhiisay microphone hortiisa aad dhahayd ii sheekay adeer ka sheekay wixii kugu dhacay hooyadaas sidee noqotay xaalkeedu sidoo waxa soo wax laga xishoodo man aha wax ku fiican samcadda saxaafadnimada iyo maxaa dhihi jiray damiirka bini aadanimada
إن شاء الله وحرجينا إن تكوحس أتكوان توبي دونتي أنا قف يرى صغيرة من ضمب إن سوف الإسسين إذا عط إلى دهن هبل صدوق دعي يدل كان صدوق دعي هو إذا أباها صدق يعني حال قول صدوقها صابتها ما قرن كرت عنو جوا المصغيرة ما قرن كرت وحي ماشي سكدعي هذا يقرأتنا أيدي وأرجح كجرا أو قلبي كحنم صنيص إن هذه مرك قلبي سيم الموجود أو قدح كوسي من الموجود كوسي دقاج سبحان الله فلارت إنك كوجو رفتي كي كوجل جليات درنا الله فلارت خف كوجل جليات درنا مرك هذه كيد لها أقدر إنا كوسي نحن حسود هذا هو يسد هذا هذا واحد لقى في عنها والله بلا تلا ضمير كنا ما أهم وح وهنا عن قارن كرنا ما أحنا ده أمد الصومالية كاسة هايا حتى ومسي كومسي جرت الميرا صقيرة سديت شرو هرتا أنت لو صافر إيسي للإيه هو يدا صديق توريد وقول عضي هو يدا سديل لو دري هو يدا سديل لو عرسدي أدو محضر أنت إيسي ده هاد حال كيس إن شاء الله حرجينا إن أنت تصنع 10 وقادم دوتي فيديو كان هتتكشن ودعية ولا شيء صومالية ده لما إله نحرس جناسية المه هذا إله سبحانه وتعالى وحرجينا إنه إله كريم في عن وصيه وقدر شيء إله وفنانه إيه الكذي قراءة هذا وصمر إيمان وقصير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.